jira oo hooya inaan waligay arkin madaxweyne Soomaaliya ee waddankayga sharafta leh Soomaaliyeed oo ah madaxweyne waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan beesha Sacad oo suugtoodii shidaalsaday iyo magaalada Gaalkacyo oo isku diyaarinayso soo dhaweynta madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheikh Maxamuud arrinkii dani ah Ilaahay wuxuu ku salladay cabsi iyo fulaynimo iyo baqdin aan la garanayn xilliga ay ka ba'ayso shimbir haday dhuusto ama bacdi sharqantaba wuxuu leeyahay war maxaa halkan ka soo socda war iga fiiriya war halkan iga eega maaragtay federaalka iyo stateka halkan waxbaa ka baxaya muxuu ahaa masaas baa yuusan nagu guban dabba ayaantaana maqaraxyada waa laga baqaay cabsida ugu weyn oo aan qabo anigu ma ahan in Xasan Sheikh Maxamuud uu Gaalkacyo dagaal ka rido cabsida ugu weyn ee xilligan qabo waxa weeye in fulaynimada dani darteed uu mudug dagaal uga dhaco waana ku socota soo dhawaada dhamaantiin waa 14 Agost 2026 barnaamijkeena waxaan idin la wadaagi doonaa magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug oo maalmaha soo aadan isku diyaarinaysa soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh oo ku wajahan magaalada qodobka koowaad ee aan ka hadlayo waxa weeye fulaynimada dani darteed ayaa mudug colaad uga dhacaya haddii dadka reer mudug aysan gacanta iska qaban iyo qodobkayga labaad oo aan ku sharixi doono oo ah dani xaq uma leh maamulka galmudug oo uu aqoonsan yahay inay koonfurta Gaalkacyo iyaga maamulaan inuu dhaho Xasan Sheikh ma imaan karo labadaas qodob baan sharixi doonaa qodob kastana cadeymihiisu wata anigu sheeka baralay iyo waa lagu ma taqaanay hebel baa hadalkan diidaya iyo mid baa dhibsanaya iyo mid baa nacaya yaan u kama shaqeeyo haday runta xanuun badan tahay inaan sheegaan la igu yaqaan ama dhibso ama dhibsan aday ku taala ama dhageysa ama dhageysa careless wax iga galay ma jiraan aniga wixii xaq ah oo run ah inaan sheegaan la iga yaqaan warbixintan iyo muuqaalkan bal la dhaca oo share garay meel la rakato aad wad mahadsantiin aan ku bilaabo qodobka koowaad aan ku bilaabaya ninka dani ah horta waa nin fulay ah fulaynimadaysan waxaan ku maagaya ma ahana isaga qirtay hadda muuqaalkeedan la wadaagay madal dhan oo la qudbadaynayo ka baqay waxa halka ka soo jeeda maxaa weeye internal big la arkay ama igu qarxa waa nin naf jecel qofku hadduu noocaas yahayna goobaha nafwaaga ah iyo siyaasaddu xilliga kulushahay iyo xilliga Star War ku jiro kuma fiicna inuu hoggaan noqdo tan iyo ninka maalinta uu ka quustay in xamar uusan madaxweyne ka noqon karin in cid dooranaysa aysan jirin in siyaasadii looga adkaaday in albaab kasta ka soo xirmay dadkii reer mudug ahaa iyo bulshadii gobolka mudug buu colaad u qalqaalinaya cabsi warqadaha baroorta ninka ka dhacaysa hadda dagaal buu wuxuu ku laayay niman dhalinyaro ah iyo tolkiisa dagaalkaas dadka wuxuu ku kiciyay Gaalkacyo ciidan baa laga qortay Puntland ciidan baa laga qortay ciidankaas anay ma taqaan Xasan Sheikh oo mushaar siiyo way soo qabanayaan ciidankaas wallahi waxay ogaataan reer mudugow markii xabadu bilaabato ninka galmudug laga soo gurmanaya Sacad baa soo gurmanaya magaalada Gaalkacyo bilooyinkii ugu dambeeyay ama labadii bilood ugu dambeysay ninka colaad uu ka waday colaad niman tolkiisa buu ku laayay dagaal xaq darro ah oo xasuuq ah buu ahaa dagaal laga baaqsan karay buu ahaa ciidankaas wuxuu u diiday mushaarkoodii waa ciidamadii qabaa'ilka oo calmiskaad ka soo dagaalamay oo Puntland difaaceeda u taagnaa meeshay isbaara ka dhigan lahaayeen bay xaquuqdoodii waxay u raadsadeen dawladda federaalka oo mushaar bay ka qaateen dani wuxuu yiri dawladda federaalka mushaar kama qaadan kartaano waa wuxuu dadka u sheegay waqtigeediina waa dhamaadayo Xasanna waa sharci darro oo ciidankana aanu igu carqaladaynay arinta cajiibka oo dadka ku kiciyo waxay ahayd ciidankaas markay dagaalamaan way ila dagaalamayaan bal markay dagaalku bilowdo ninka galmudug laga soo gurmanaya niman tolkiisa oo jifidiisa u badan jifidiisa marka la beersha ma jeerteen u badan
buuxeerada gaalkacyo BSF ku xasuuqay taangi uu la dhacay afarta koob uu la maray warkii uu sheegay been buu noqday xerada danab iyo galmudug iyo xerada BSF ee gaalkacyo wallahi wax yar isku jiraan حتى اسكدا قرمده فوق كما سو دحين فوق هل فوق كما سو arrintaasi dadkii dhibaatadii loo kitibaa dhacday bilalaqadii dhaweytibaa dhacday maamulka gobolka mudug foolxumadii kaamirooyinka soo qabteen baad ogaadeen ceebtu loo kitibaad ogaadeen ihaanadii baa dhacday niman tolkiisana waa laay wuxuu dareemayaa in natiijo uusan ka gaarin dagaalkaas tolkiisuu ku qaaday weliba tolkiis isagu xasuuqay oo xaquuqdoodii ka jartay weliba hay-addan BSF isagu kibir ula dagaalamay ciidanka qabaa'ilku isagoo gaajaysay waxaa cajiiba marka oo yaab leh oo dadka caamada uu ku qaldaya wuxuuna leeyahay oo ummaddu u sheegaya in dowlad federaal waa xasan shiikho mandatekiisii dhammaaday bal dooda si u wadaan u dhigaynaa in mushaar laga qaato waa qalad in mataqaanaaye ilaahu aadan beerka u dhiman ciidan loo noqdana waa qalad haddana shalaydan magaalada Garowe xasanka uu leeyahay mandatekiisu waa dhammaaday iyo dowladda federaalka uu leeyahay ma jirto baa mashaariic waxay ka fulinaysaa magaalada Garowe mashruucaasna qoyskiisa maamulaya waa kana sawirradii waa kuwan labada kun arshay fish Soomaaliyeed macna waxay tusayaa in dari uu rabo inuu aqliyada ummadda ku ciyaaro reer Puntland iyo dadka reer Mudug aba inuu tusayaa dadka dhiiga caruurta masaakiinta iyo ciyaalka xerada BSF uu laayeen oo ku calaashaday waxay ahayd ninkaas mandatekiisa waa dhammaaday xilkiisa waa dhammaaday mushaar aad ka qaadataan anaad igu carqaladaynaysan haddana mashaariic buu ka qaadanayaa isagu ninkaas xilkiisa iyo mandatekiisa dhammaaday mashaariicdaasna qoyskiisa maamulayo mashruucan shalay ayaa laga hirgelinayay magaalada Garowe 7 casho soconaya warbaahinta dhinac qorayso dowladda federaalka fulinayso mashaariicda World Bank weeyaan faladagu isqabatay ninka xilkiisu dhammaaday mashaariiciisu waa macaan laakiin si ciidanka aan gaajaysiin mushaar kama qaadan karaan bal adigu labadaas isqabatay war hadda ciidanku ma isbaaray dhigtaan inta isbaara dhigan lahaayeen oo habraha baadi lahaayeen oo telefoonada furan lahaayeen hadday xamarta aad leedahay xilkeedii waa dhammaaday ee mashaariicda aad ka qaadanaysid oo weliba qoyskaagu ay cunayaan ay mushaar u doonteen maxaa ku haysataa haddii ilaahay wax ka siiyay soo mashaariicdii ka maqnayd ama xaquuqdoodii ka maqnaa oo aad u diiday soo maysan qaadan waa maan guracan iyo garasajan waa caqliga liidata ee kooxda dani waa mareen habaabinta ay ummadda ku hayaan waa been abuurka qiyaaliga ummadda ay u sheegayaan waa caamada ay qaldayaan laakiin si qof kasta oo caqli leh oo reer Puntland ah ama garan kara waxa jira iyo xaaladana xogagaal ah ma gaadi karaan mana qaldi karaan xasan mandatekiisii dhammaaday oo sharci darro ku joogo oo dani naga gaday inay doodiisaas u wato in mushaar laga qaato iyo in mashaariic laga qaato maxay ku kala duwan yihiin hadday dambiilo noqdaan adigu soo dambiilo ma tii waa aniga keligay aan noolaado waxa raggaas aad ku laysay oo dhiigooda u banaysatay oo u xalaashatay oo waxa suuqday aniga qoyskaygu hal noolaadaan bas ummaduna way og tahay waqtigeeda ayaana lagugula xisaabtami doonaa waqtigeeda wax lagaga haraya ma ahan haddaan kuu sheegaya waa lagugula xisaabtami doonaa caruurtaad laysay oo xasuuqday oo dishay oo aad ku dishay galmudugaa looga gurmanayaa galmudugna loogama soo gurman saacadna xabad ma ridin meeshii baad ku laysay meeshii waxa loogu talagalay xataa federaal xiriir lahayn waxa loogu talagalay in la bilanqaysto inaad burburisid intaas inaad gaalkacyo hoobiyo lagu garaaco dad barakacaan in la saso ummadda qaxisid shalaydan oo 13 ka goosana mashruuc tadaburi soconaya kuwa kale aan la soo sawirin iska dhaaf u qaata mashaariicda dowladda mandatekeedu dhamaaday ee xilkeedu dhamaaday baad ka qaadanaysaa hadda adigu madii cuna qabataysa hadday doonteen adigu Soomaaliland doonan macna aniga bas xamar wax ka cuni karo miya aniga bas aadi karo aniga bas tagi karo waa intaas waxaad ku leysay ragaas qodobkaas halkaas aan uga tagaya qodobka labaad waa dani hadduu ku guuldaraystay in gudaha Puntland dadkeenni caruurteenni u laayay xamar mushaarka u doontay isagoo mashaariic u doontay
ay waxba uga suurtagali waayeen hadda wuxuu qalqaalinayaa colaad reer mudug iyo dhex marta reer mudug dhexdooda dhex marta ama galmudug ha noqdaan puntland warqadaanu soo saaray xal ma ayay galmudug ma taqaanay ma keeni karaan gaalkacyo xasan sheekh hadduu yimaado colaad buu hurinayaa hogaya ba ayay warqadaanu dheer maamulka galmudug koonfurta gaalkacyo ee galmudug xasan sheekh baa imaanaya oo colaad baa laga yaabaa inuu huriyo oo hogaya ba ayay waxaan la yaabay laba wajiilanimada iyo munaafaqada warqadaas ku jirto wariyaha ma ummadda caqligeedaad ku ciyaaraysaa war galmudug soo maamul uma aqoonsanin haa soo warqadda kumaadan qorin haa koonfurta gaalkacyo ee galmudug shaydaan iyo jin hadday keensanayaan soo maamul puntland ka madax bannaan maaha bal idinku dulmiga iyo gardarada arka ilaahow may shaydaan 6 indhood la keensadaan xasan sheekh baa ka hadlaysay hadday keensadaan soo iyagu magaaladooda ma maamulaan sacad soo koonfurta gaalkacyo iyo xaafadda baracle ama wada dirso iyagu ma deganaa soo maamulka galmudug kama tirsanaa say u maamulanayaan miyaad u sheegaysa adigu ka waran haddii maamulka galmudug maalintaad gaalkacyo imaanaysa u oran lahaa dani ma imaan karo gaalkacyo sow qalad iyo gardarro ma ahayn bicid ku tiri baa jirta walle iyo bille sacadka gaalkacyo ku sugan iyo dani caqliyadda uu dheelayo iyo dadku u sacabtumaya kala gobsan maayirka magaalada gaalkacyo cabdiraxmaan sheekh xasan waa nabi heelowla ah gudoomiyaha gobolka mudug iyo taliyaha qaybta booliska ee dhanka galmudug dhammaantoodba waxay joogeen xafladii 1 Agoosto ee ka dhacday dhanka Puntland bay joogeen Puntland bay la dabaaldegayeen maayirka magaalada gaalkacyo dagaalka calmiskaad boosaaso u tagay dani inuu dagaalka kala qayb qaato sawirradii waa lahayaa boosaaso u tagay isagoo raashin wado boosaaso tagay labadii maamul wada shaqeynaya galmudug iyo Puntland ee amniga guddi amniga wada shaqeynaya wax dhib ah oo magaalada ka jirta ma ay jirto waxa baqaya ee ilaahay fulinimada ku taagay ee barooranayo waa danigii xasankii shalay isagu ummadda Soomaaliyeed dakada ka saaray ka cararayo waa danigii isagu xasan shalay watay waa danigii shalay nagu lahaa Muuse Suudi iyo Cabdi Qaybdiin baa igu yiri ninka daarood filada laga soo saaro waa danigii nagu lahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ma sii joogi karo waa ninkaas shiil madowga ilaahay ku taagay wadnaha booka ka jirta fulaynimo aanan ab iyo isir u lahayn baa ku jirto baqdin baa ku jirto tan iyo maalintii 2 bilood ka hor ilaa ninka maalintaas hadba mawjad baqdin marka soo ciidankii federaalka ee Puntland joogay oo isagu duudsiye xuquuqdoodii u banaysa dhiigooda wuxuu yiri galmudug looga gurmaday galmudug hub loo soo mariyay ma jirin galmudug u gurmatayna ma jirin markay taasi mira dhali waday maanta wuxuu leeyahay dartay reer mudug isku laayaan intaas wariya war galmudug hadday meesha xukunto oo xaafadda baraxle iyo wada jir iyo koonfurta gaalkacyo aad u aqoonsan tahay hadda madaxweynaha federaalku iyo maamulka galmudug waa maamul qayb ka ah dowladda federaalka umana yeerinaysid waxay iyagu rabaan uma yeerinaysid ciday rabaan bayna keensanayaan dadku ma ahan maamulka waqooyi baro talnimada kugu ixtiraamayay oo ka xishoonayay ma ahan shalay bay markuu xamsa laasaanood u soo socday markaad afka isaaq aad ku hadlaysay isaaq waa waxa la laasaanood xamsa ma imaan karo waxa wasiir warfaafin u ahaa ninkii hindiga ah ee caydiid ee jaamaca siiyay magaalada inuu yimaado xasan sheekh ra'iisul wasaare xamsa inuu yahay qalad oo meel la isku halayn karo amni ahaan ma maantana ma waxa taagan tahay inaad dhahdid dhanka gaalkacyo galmudug maamulaan ma imaan kara xasan sheekh haddii dhulbaanta iyo waqooyi bari xishood talnimo ayagoo xiranaya ay ka xishadeen wallahi baa laga xishoonin waa la iska ka celinaya ana runta ku sheegay waa la iska ka dhicinaya alka iyo gafuurkana lagu dhufanaya aabo kan yar iga celi kan weyn baan ku ordaya iska celinaya galmudugna waad ogashay inay gaalkacyo maamusho xasan sheekh oo ay hoos tagaan liibaan shuuqa madaxweynaha hadda ah mar dhow la caleema saarayo de qorqor buu kursiga qorqor yaa ka maslaxay de xasan baa ka maslaxay xasan baa meesha ka sameeyay isagiina colaad mudo war bal gobonimada reer galmudug ka war ninka hadda liibaan shuuqa yiraahdo walaalahan Puntland baa jecelnahay waan ixtiraamayna nagaba gayaanaan colaad ku buu taagay wax Puntland dhibaato ku ah in lagu sameeyo gaalkacyo dhinacan kale man aqbali doona daalira mi aqbalaysaan marna ma dhici doonto Puntland lid ku ah dhinaca kale looga tababaraya marna ma dhici doonto maruntood baa sacma maruntood aha
dani baa wuxuu yiri intuusan ciidanka BSF dhigooda xalaashan oo uusan layn buu wuxuu yiri dhanka galmudug looga gurmana diyaaradaha waxay ka daayaan garoonka oo shaaka gaalkacyo ciidan baa u soo dusayo waa la taag dagaal buu ku qaaday ciyaalkii masaakiinta waxa sugay wallahi buu isu gurmaday baan iyagu ma naga saxnayeen waraanaga nibidin mar ogolan ma dheen soo kuma saxnayn sawdoodii hore dani wuxuu yiri nimanku way gaadayaan hoostay ciidanka urinayaan maxay ugu gurman waayeen marka ciidanka BSF weerartay ilaa federaalka ah maxaa xerada danab ee galmudug looga gurman waayeen ina adigu been sheegaysay baa cad haddana liban sunu waa noo sheegay mala loo tuba hadlay walaalahan galmudug Puntland biir dib uma qoon wakana wax Puntland dhibaato ku ah in lagu sameeyo gaalkacyo dhinacan kale ma aqbali doono daalira mi aqbalaysaan xafladii kooda agoosina la xusayay gaalkacyo la joogo hotel cadoon ay joogeen labadii maamul baa wada shaqeynayay walaalahan galmudug waan bogaadinayna dhankooda daansina kama jiro cid colaad kicinaysana kama jirto markasta oo dani gafuurka la socdaan waxay dhahayaan dani colaad buu mudug ka hurinaya xasan sheekh wixii kala dhaxay anaga nama qusayso xasan sheekh iyagu madaxweynaha Soomaaliya u yahay way hoos tagaan ma maamul federaal hadda adigu xasan u caraysan tahay ila carooda sacado ama galmudug ama markii ila cadoora dicid ka yeelaysa male waxa dhul baahta ku haysatay xasan sheekh baan isaysanaayo maxaa u raacday adigiina waad u nuumanaysaa xamar baad ugu tagaysay waa adigii qirayo walaha xataa iyadoon la ogeyn baan xamar tagay oo xasan sheekh laalay hormal masayrka inta la eg arka masayr laan wixii loogu bixiyay waa maamulka dani intuu tago waa masayr laan dani ku xaar weeyay shalay baan ulbaanta waxaad ku haysatay maamul xasan sheekh bay ii raaceen marka aad weydiisato qof dani taageersan war dani maxaa nimanka noo dhibay xasan sheekh oo aan saynay aadin marka sacad hada waa hawiye sacad وانا حبر قدير وانا مامل كقلمدوك حداد ولا ذا البهانة الدستور كبد لا بكجران يقوى مامل قاربة وانا نمن هوية ده حسن شي خداد وعريسان تاي الى عروضة حبر قدير الى عروضة عند كاية اللي سماه عنده تدخل عقدات قل اسكمان سو عريان فلذا يمكن تنار اركا من كان نمو هذا تدكا كويس والى عروضة فظلم هي قدر من ما هتنتوتي galmudug baana maanta qaangaarnimo u dhow labada maamul isagaana ma taqaanaaye maanta cabqarinimo u dhowday qoraaqaha la soo saaray diblomaasiyadda annagu colaad mudug kama rabno ma taqaan xasan iyo dani waxay isku hayaan waxba nagama gelin intaasay taagan yihiin dulka war waa maamul galmudug dhowr iyo 10 sano jira Puntland waa qaangaar habartii Puntland nooyadii federaalku waxay noqotay habar masayrsan mid la qabto male caro oday caraysan oo waxa guursaday cuqdad qaba cuqdad rabaani qaba cuqdada rabaanigaana fulaynima u dheer hargaha looma jajabin hadaba daniyo colaad kama jirto mudug aan fulaynimadaada ahayn hal baana jirta fulaynimadaada darteed iyo balaayada aad hurinaysid iyo baaska aad sidaysid mudug colaad way uga dhacaysaa lamana mahadin doono anagu marka haddaan reer mudug nahay halkan aan fariin ka diraya odayaasha dhaqankii wax garata odayaal iyo wax garado maalintii idinkoo la danayo annagoo nimankaas colaad dagaal ridin oo ciidanka BSF annaga naga warsig buu saraakiil hoosaadyo isaga adoomo u ah buu wacay nimankaasna uu ku duulay tolkiisa tolkan wiilashani ah walaalahay idan kala ma tashan magaalada iyo la hurdo buu sasiyay hadday nimankaas way go'doonsanaayeen gurmad helayeen dagaalku waa ballaaran lahaa waa lagu kala carar lahaa qasaaro naf iyo maal la dhicin kala ma tashan hadda wuxuu dardaar weynanayo qalqalanay waa colaad reer mudug dhex marta ninka gacanta ka qabto haddii isaga magaalada aysan lexla jecla ka hayn oo nin reer qardhooda yahay oo maatadiisii iyo caruurtiisiiba qardhiyo bari aysan ka sokin annaga caruurtooda iyo maataydu gaalkacyo joogtaa mana u ogolin colaad waxaa cajiiba wardani 2 bilood intii 2 bilood ay colaadu mudug u saadinaya colaad aan jirin u saadinaya waa colaad gacan ku samaysa fabrication war colaada sacad iyo hawiye iyo habar gadirta mudug degan arki weyday ee dani arka maxay tahay war colaada ma annaga u baahan ee iyaga aan waxba ka dhiman maxay tahay colaada annagana wax naga dhimaysa iyaga wax ka dhiman maxay tahay war dadka reer mudugga dad waa arag ah weey war colaadu waxay tahay way garanayaan war daniyow nabar baa kugu taagan war intii 2 bilood ayaa balaayay baas kicinaya war adiga hadba booraan ka qaylinaya war adiga hadba dibaan tumaya colaadeed war walaalow naga daa war naga daa
warcad dheer baan ku leenahay naga daa colaadda gaarka adigaa wadatid war sacad iyo habar gidirta mudug degan iyo maamulkoodaba dhankooda colaad kama maqlayno oo way noo imaanayaan oo way nala joogaan walaalayaal maxaa khaldan maamulka galmudug uu noo imaanaya dhanka puntland uu imaanaya gudiyadii amniga wada jooga ciidamadii wada shaqaynayo dani baa wuxuu yiri gaalkacyaaga ma u gurman sacad xabad ma ridin halkaasay joogaan walaalayaal maxaa dhiba maxaa khaldan bayna leeyahay ninka dani ahaana uma jeedo indhihiisa wax la qayin xasan soo ma jeedaan xasan war xasanadaa watay war xasanadaa nin daarooda u raacay war xasanadaa canshuurta puntland ku soo saaray war xasan isagoo anagu aan ku aaminsanahay inuu fidna mudug ka bilaabay 2016 adaa ka dhaqay oo madaxweynaha Soomaaliya la oroleeyay adaa shirarka mudullood ka qayb galay adaa shirarka hawiye ka qayb galay war hawiye sala soo taadi wadatay war ayagoo geela 91 ku qotortay oo farmaajo la dagaalamay Soomaaliya wada hadda wixii way isbedelaan waan isdagaalnay iyo marka adigu hawiye maalinta isdagaashaana waa in anaguna colaad u diyaar garowno maalinta heshiistihiina waa inaan ku raacno aqliga saliimka waxaas ma dhigayo nimana gubaysid dadkuna waa iska ka qabanaya madareer mudugga odayaasha iyo cuqaash ninka la taliya colaadan isagay gaar ku tahay colaadan isagay nabar ku tahay colaadan isagaa wata qoriga dab kale isagaa la ordaya ninkan gacanta iska qabta ninkan yuu soo gubin ninkan waa beelo guba mudug kama jirto mudug fitna kama jirto iska qabta haddii mudug colaadi ka dhacdo iyaguna ma joogeen waa leenoo ka kala tegaya oo wallaahi isaga wuxuu jeedka wato waa daarood iyo hawiye dagaalkaanu oo hadhow qayla garna weysan inta dhacda xasan sor fariista wallaahi baysan dhacayn daarood iyo hawiye isdagaalayin inuusan jirin wallaahi buusan jirin waxa la isaga tegayo oo runtan idiin sheegaya oo ummadoo dhan xabaaliya ninkii loo kala tegaya waa reer mudug reerka ugu dambeeya ku dagaalami doona magaalada waa Cumar Maxamuud iyo Sacad waa xaqada rasmiga yuusan ninka bad iyo dab ina gelin haddaan beelaha gobolka mudugnahay ee Puntland colaad aan ku dhamaysamay inaguna waan qaxina iyaguna waan qaxaya waan isku jilba marxaya wax natiijaan hadhow lagama gaarayo ugu dambayna waxay ku soo gabagabaysaa sidii 2016 xaggana qadada xaggana quraacda maxay ku dhinteen 100 wiil wax natiijaan lagama gaarayo daniyo walaalow haddii adigu aad la jecel mudug ka hayn oo ma taqaanaayay dadkaagii iyo maatidaadii bari aad geysatay annagay maatidayo naga dhuguma dul dagaalami kartid colaadna ha noo saalin dhibna ma jirtaan filinimadaada haddaba dad badan waxay isweydiinayaan wardani maxaa ku gaara wardani nabarka ku taagan muxuu yahay wardani colaadda isagu u arkaya maxay tahay anaa idin caddaynayo Soomaaliya Puntland xaalad nololeed ka jirta oo aad u adag sicir barar baa ka taagan shaqaalihii rayidka ee Puntland waa mushaar la'aan ciidamadii waa mushaar la'aan Puntland qarax bay u taagan tahay in dani kursiga laga tuuro kadib boosaaso ay ish dhaqaalaha Puntland way xiran tahay muddo dhowr bilood ah canshuur uu dani ku soo rogay darteed xaaladaas ay ka jirtaa dadku inay qarxaan bay ku dhowdahay qaraxaas uu dani isaga dajiyay waxaan oo fidna u abaabulaya wallaahi oo billaahi oo tallaahi saddex dhowr bilood koor sangaduud deegaanka la yiraahdo colaad baa ka taagnay dani lacag buu ku bixinayay inaysan colaad dhicin buu lacag ku bixin isagoo rajo ka qabo inuu madaxweynaha Soomaaliya noqdo markuu ka quustay inuusan rajo ka rabin buu maanta colaad gaalkacay ka horeeyay oo wallaahi oo billaahi waa baari kartaa anaa nin reer mudug ay wareystay wallaahi waa baari kartaa وشلي سنجدود إني سن على تكلم عند بتكشف جنسي ما حد ما أنت قال كعيب وكوي وكشف قينا سافينا ذينا معنا وحنا ولا يبغى كقوستي وحنا وجهه إن إنديه بدلنا ردم كوسو جدا سر الشعب كمركي وجهه بالبان كانوا تمايا كل جيت لي يا أشا أما ضدك حكم كجعل إنها الشعب كمركي كوسو جدا وحي أبوران عدو أنجرين عدو جماعة أنت أنجرين وهويه يا حسن شيخي يسقوا شلي ونعم لا يهوها وهويه يا حسن شيخي يسقوا شلي ودبر لي في كوها وهويه يا حسن شيخي يسقى شلي وزيرك كدقي وهويه يا حسن شيخي شلي يسقى صوت صار سياسة كدري ودم الجديد كو يسقوا عدو كدقي أنت سوي وحكي لهم جدا سر شعبك أيسن ولا حسابته من حسابته كاس يسقوا كعرية مو هذا الدرب مدح لدعية وانا كنت بدونه وحقيقة وانا كعبابية وانا كبربرية فدنا لنا يسقوا أنا رديني شباب انت أنا يسقوا أنا مسؤول كذا ما تكرر المدوق أمرك لما مثال لو قدوني إنتني ولما تذكر المدوق غير بتران إلا إنك أسقى قبطان odayaasha dhaqanka iyo cuqaasha oo ballantii uga baxay maalintu BSF weeraray ay haddana runta u sheegaan walaalow finada naga dadhaan iyo
inay inta iska aamusaan sidii maalintii dhowta lagu kor dagaalamay ayna qaxaan hadhowna xasan iyo daniyo iswataad arki doontaan iga qora hadalkaas miyaa lii ogay maya maqayb baan ogahay maya waxna la ima sheegaadeen waxina iguma soo duwa balse meesha ay ku biyo shubanaysan waayo 34 sano colaadii mudug baan ogay wax natiijana lagama gaarayo dagaalkii uu xirada BSF ku gumaaday ciyaalkani mid laga baaqsan karay waa dulmi iyo kibir buu ahaa haddaan qiraya dulmi iyo kibir iyo badrad buu ahaa dagaal siyaasadeed buu ahaa cawd dariiqnimo ahaa waqtigeedana lagu xisaabtami doonaa hadalka intaasaan ku soo laynayaa aad baan idin salaamaya meel ka soo joogtaan waa mahadsantiin